wasaaradda guud ahaan batroolka iyo macdanta waxay dowladda ummadda Soomaaliyeed wakiil uga tahay inay uga shaqeyso oo ilaaliso kheyraadka batroolka iyo gaaska iyo macdanta Soomaaliyeed mandate-kaas ay haysato darteed ayaan waxaan markaa ku fakirnaa inaan adduunka ku soo jeedino in resource-ga Soomaaliyeed diyaar u yahay in maalgashan karo waxaan su-aasha weydiisay dambe hoos ugu dhaco shirka London oo ka dhici doona February bilowgeeda haddii la yiraahdo waxaa abaabulay oo qayb ka ah oo wasaaradda batroolka iyo macdanta oo aniga aan hogaaminayo iyo shirkad loo yaqaan Spectrum oo dowladda Soomaaliya u qaabilsan hore ugu sameysay baaritaankii badda qayb ka mid ah Soomaaliya isla markaana macluumaadka Soomaaliya gacanta ku haysa waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo kaliya macluumaadka iyo daatada Soomaaliyeed laakiin sida wararka suuqa la geliyo oo ah in la xalaashiyo shidaal Soomaaliyeed sax ma aha waan horaan uga soo saarnay wasaaradda ahaan statement lagu cadeynayo in xalaash balooga Soomaaliyeed aysan jirin marka aan daatadan soo bandhigno kadib waxa imaan karto interest inay muujiyaan muxuu ahaa shirkadihii taasoo qaadan doonto ugu yaraan aakhirka sanadkan in isla gaaro in hadiiba ay noo dhamaato in isla gaaro in la bixiyo qandaraas marka wasiir konton balaadoo la hadalhayo iyo dhulku kacaya 143 kilomitir square doodaha noocaas aad loo hadalay waxaa leedahay shirka London loogama hadlay meesha laga keenay konton balood aniga garan maayo runtii baloogyada Soomaaliyeed waa calaamaysan yihiin badda inta la baaray iyo inta aan baarneenba laakiin numberka aad leedahay konton balood ana wasiirka wasaaradda ma ogi haddii san jirin suuqyo weyn oo meelaha qaar shirkadaha aadan dhahaynina halkan manaafacaadkan haynaa ujeedka shirku muxuu noqon doonaa ujeedka shirka waan ku sheegay in Soomaaliya lagu soo jeediyo maalgashidaal caalami ah si ay u maalgashan doon mustaqbalka u maalgashtaan Soomaaliya qofna maalgashi ma samaynayo hadduusan arkin wax meeshaas uu ka faa'iidi karo wuxuu ka faa'iidi karo waan ka wada faa'iidi karna inaan horta isla aragno kadibna interest-wada ay muujiyaan wada hadalna markaas kadib uu furmo soo dhawaana wadanka sanadka aakhirkiisa laga wada hadlo wixii shirkadan hawsha idin qabatay oo dowladda Soomaaliya la shaqeynaysay meelaha calaamadayso rajada ka leedahay waxa meel kasta oo ay baarta aniga rajan ka leenahay dhulka Soomaaliya oo isku mid inta la baaray waa meesha la kasoo bilow kismay ilaa hobya baar badda waxaa jira qawaaniin dalku leeyahay oo qabanaya wasaaradda tusaale ahaan shuruucdii hay'adda batroolka ee labada aqal ee meel maryan ahayd way ku hortaalla dhisidda hay'adda batroolka weli ma suura gelin wasaaradda waxaad moodaan suuqgeyn iyo ka hadlaysa shuruuc caalami marka shuruucdii hay'addan maxay dhaabi lahayd xagee bay marayaan macnaheedu ma aha shuruuca dhiman gacmaha la socodleeda ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa in laba shaqo soo socdaan sharciyadana sharci aan ma nihin sharci waan haysanaa hay'adihiina way dhisin doonaan laakiin hadda waxaan u soconaa waa presentation lagu sameynayo daatada Soomaaliya rajada ah in sanadka dabaaqadiisa ku alalisayna rajo leedihiin in dadka damacgeli kara iyadu waa run laakiin haddaysan hay'adihii baarlamaanka ku meel marsiin si u suuq gelinaysa hay'adaha ma dhisna intii ma leeyahay sharci batrool yaalo oo 2008 la meel mariyay baarlamaanka meel mariyay sharciga hadda aan ku sameeyay dib u eegis baarlamaanku yaala waa sharciga 2017 baarlamaanka geeyay qodobada laga amin jiray ama dib u eegis lagu sameeyay waa qodobo saameynaya federalismka wadanka oo kaliya macnaheedu haddii sharcigaas uu baarlamaanka yaala kii ka horeeya valida wasaaradda ku xasuusay mar kale oo arabka ku adkeeyo shirka London February horaanteeda wax heshiis ah iyo wax iiba ma jiro doona wax heshiis ama wax contract oo